daawadayaal halkan waa degmada Goldogob ee gobolka Mudug safar aan kaga imaanay Muqdisho ayaan halkan ku soo gaarnay waxay la jooga agaasimaha warbaahinta Salbaar Cabdirasaaq Xaji Catoosh Cabdirasaaq dadku maxay naga filanayaan maadaama aan ku suganahay degmada Goldogob ee gobolka Mudug isla markaana ay ka jiraan ugu horeeya caleemasaarka ugaaska iyo sidoo kale maxaa ka cusub Goldogob aad baad u mahadsantahay Saacid saacado ka hor aan soo gaarnay annagoo bahda warbaahinta Salbaad ah kaameramanada wariyaasha iyo dabcan team culus oo aan Muqdisho kaga soo baxnay saaka arrinka ugu weyn ee halkan u imaanay dadkana ay naga filan karaan waxa weeyaan caleemasaarka ugaas Cabdiraxmaan ugaas Maxamed oo maalinta axadda ah lagu caana shubi doono dabcan qabanqaaba socota magaalada dad badan baa runtii yimid welina inta naloo sheegay Goldogob ma aysan arkin marxaladda maanta ay ku jirto culayska miisaanka iyo dadka yimid tiradooda siyaasiyiin haddii ahaan lahayn hadday dhaqamo ahaan lahayn mana ahan jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda dalka Kenya laga yimid qurbaha laga yimid dawlad deegaanka oo daris la ah Goldogob laga yimid marka dadku waxay naga filan doonaan caleemasaarkaas oo tabin toos ah sameyn doono maalinka axadda hordhaca caleemasaarka maxaa socda ugaaskan taariikhdiisan eegi doona odayaal dhaqan aan wareysan doona dabcan magaaladan waan ka warrami doona waxaa xusid mudan Goldogob markii degmo ahaan la yiraahdo inay ka mid tahay magaalooyinka ku suntan taariikhda dalkan Soomaaliya meel fiican kaga jira gaar ahaan dagaaladii 700meedii Itoobiya iyo Soomaaliya dhaxmaray xuduudda nagama fogo waxa naloo sheegay 5 ilaa 7 kilomitir inay noo jirto magaaladan kumanaan wiil oo askartii militariga Soomaaliya ayaa ku aasan oo waa magaalo taariikh ku leh dagaalkii dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya fariisimo ciidan baa joogi jiray generaalo fara badan oo ilaa 12 ah yaa xirooyinka ciidanka halkan ku yaala soo maray balliya ku yaala dhul aad u qurux badan inkastoo xilli kuleel ah aan ku soo aadnay marka dhinacba kalan ka eegi doona arrinta dadku waxay isweydiinayaan ma ka soo qayb gali doona caleemasaarkan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland sidoo kale Galmudug oo kale iyo madax kale inta naloo xaqiijiyay Puntland baan hadda hubnaa waa marka inta naloo xaqiijiyay dabcan waa laga yaabaa inay kuwa kala yimaadaan laakiin xafiiska warfaafinta dawlad goboleedka Puntland waxay noo sheegeen madaxweyne Siciid inuu iman doono martidaas imanaysa saameynta magaalada ay ku keentay magaalada hoteelada malahan oo hoteelada waa la buuxiyay gebi ahaanba dhowr maalmood ka hor la sii qabtay hoteelada qaar martida loogu talagalay in dadka guryaha la dajiyay magaalada runtii aad baa looga dareemi karaa maqaayadaheeda cuntada biibitooyinka ganacsiga kale wax walba waa xaami waliba kaftan baan raacino waxaan niri haddii Goldogob ay neefsan lahayd oo qof hadla ay ahaan lahayd waxay dhihi lahayd ma neefsan karo marka naga fisha maalmaha soo socda magaalada Goldogob